السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا قيمة بدنا وما أنتم وحيدين سجدين دونا برنامجكي أها ديرجلين برنامج كاسو aan ku soo qaadano qodobo badan oo ka soo dhiirgelinaya nafta sidoo kale maanta waxa miiskiina saaran ama muuqaalkan aan ku jeexjeexi doonaa maxaa keena wahsiga haddaan guda galno wahsiga nafta macnaha rabitaanka nafta oo ah in ay seexato cunto cabto taasoo marka ay tahay wadada shaydaanka ama ay ku hogaamiso wadada shaydaanka maanta waxa ku soo gudbin doonaa toddoba qodob kaas oo ay naftu u keena wahsiga daawasho wacan. qodobka koobaad, nafta oo ku hoggaan ku qabata. nafta hoggaan ku qabata maxaan ka wadaa? nafta oo hoggaan ku qabata oo meeshii iyada ay doonto aad la aado, taasina waxay keentaa wahsi. tusaale ahaan, naftaada maanta ma rabto inay shaqeyso ama kuleel ay wax ku qabato ama howlka waxay ku qabato, taasina waxay keenaysaa in ay nafsadaadu rabin meeshaas, sidoo kale waxay sababtaa wahsi. qodobka labaad waa qorshe la'aan. qorshe la'aantu waxa ay keentaa wahsi, taasoo ay noqoto mararka qaar in aad dhibsato waxyaabo aad qabanayso waayo qorshaha kuugu maysan jirin iyada. tusaale ahaan, maanta ma rabin inaad magaalada aado, aad wax soo qabsato ama asxaabtaada aad raacdo, asxaabtaada ku timaado magaalada noo raacay ku dhahan, taasi qorshaha kuma jiro, nafta ma ogola. qorshe la'aantu ama shay aad qorshaysatay ay macnaha aadan qaban karin. qodobka saddexaad waa dib u dhigasho. inaad dib u dhigato hawsha aad qaban lahayd waxay si toos ah u keentaa ama si ula kac ay u keentaa wahsi. taasina waxaan dhihi karnaa in si ula kac dib uga dhigatay hawsha aad qaban lahayd. shaqo la'aanta. qodobka afraad waa shaqo la'aan. shaqo la'aanta jirta haddii ay nafsadaadu ay wax shaqo aysan iyadu haynin, waxa kugu dhacaysa kalsooni darro. kalsooni darradu waxa ay keentaa sidoo kale iyaduna wahsi, taasoo nafsadaada aadan ku kalsoonayn. haddii aadan nafsadaada ku kalsoonayn, waxa kugu dhacaysa kalsooni darro, taasoo ay noqonayso in aad ka wahsato waxyaabaha aad qaban karto. tusaale ahaan, xirfad ayaad leedahay, xirfadaada ma qaban karto waayo kalsooni darro ayaa kugu yeeto ku kalsooni nafsadaada. haddii aad nafsadaada ku kalsoon tahay, waad qaban kartaa waxyaabo badan aad nafsadaada u qaban karto, taasina waxay ka dhigaysaa mid perfect ah ama uga sareeya. sidoo kale waxaa kalsooni keena xiriirka aad la leedahay naftaada oo yaraada. haddii xiriirka naftaada aad la leedahay oo yaraada, waxay keenaysaa idan sidoo kale wahsi, sababtoo nafsadaada kama warqabtid. haddii aad nafsadaada ka warqabto, waad ogaan kartaa meesha aad ka dhicsan tahay iyo wax wahsiga uu ku hayo iyo siyaabaha uu ku qabtay iyo waxyaabaha sababay. balse haddii aadan xiriir aad la lahayn ama xiriir dhow aadan lahayn naftaada, waxay ku horseedaysaa ama ay ku hogaaminaysaa inaad wahsato waxyaabo badan aad qaban karto. qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay cibaado yar. cibaadadaada haddii ay yaraato, waxay ka dhigaysaa iyadana sidoo kale caajis iyo nolosha. qofka bini aadamka waxa ugu muhiimsan uu haysto waa iimaankiisa. hadduu iimaankaagu daciifo, waxba ma tihid, adduunyada dhan waxay kugu noqonaysaa mid cariiri ah. taasina waxay keenaysaa in aad wehsato waxyaabo badan aad qaban karto. muuqaalkan haddii uu ku qanciyay, fadlan saar subscribe, like, share. waaniga waa maxamed cusmaan, waxaan kaga tegayaa. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.